talada lagu caraabayo xildhibaan cunnaha eegidiyo culuq yaroweyda codsigii bulshada raaca oo cali inoo doorta kuwa loo cimaamado talada lagu caraabayo xildhibaan cunnaha eegidiyo culuq yaroweyda codsigii bulshada raaca oo cali inoo doorta وعيد الصوماليين عاوية ونقطو إلى العلنكة علنكة عراتو مرسيقى علي وافوشو وعيد الصوماليين عاوية ونقطو mahad celinaya shacabka caasimadda Puntland ee Garowe sida maamuuska iyo sharafta leh ay u soo dhaweeyeen aniga iyo wafdigii la socday waxaan leeyahay shacabka caasimadda noolaada oo guulaysta waxaan aaminsanahay maanta Garowe waa codaysay soo sida ma aad iyo aad baad u mahadsantihiin ma aha markii ugu horeysay oo caasimadda la igu soo dhaweeyay anigoo musharaxa 2013 waxaan ahaa musharaxii ugu horeeyay ee caasimadda soo galay ee ugu baaqay musharaxiinta oo dhan inay caasimadda soo galaan Puntland maanta waxay u baahan tahay wixii aan sheegay 2013 oo ahayd in loo hiiliyo shacabka Puntland in loo hiiliyo hooyada Puntland in loo hiiliyo gabadha Puntland in loo hiiliyo ardayga Puntland in loo hiiliyo ee ganacsadaha Puntland in loo hiiliyo ardayda iyo inta wax baranaysa Puntland in loo hiiliyo ciidanka amniga qaybtay doonaan ha ahaadeen in loo hiiliyo naafadii ciidanka intii dhimatay ee ku dhimatay difaaca iyo ilaalinta amniga Puntland in loo hiiliyo maanta hiil bay naga rabtaa waxaan diyaar u nahay si gaar loo xiso ciidamada jooga jiidaha Puntland ciidamada jooga ee maanta halkaan nala joogin ee boorka iyo habaasku ku dhacayo oo iyaga dartood aynu halkaan nabad ugu sheekaysanayno nabad ugu socono nabadna ku wada hadlayno waxaan aaminsanahay in la gaaray xilligii loo aqoonsan lahaa dowrkooda miisaankooda la siin lahaa xaqooda ay heli lahaayeen waxaan aaminsanahay Puntland maanta isbedel bay doonaysaa siday isbedelka u doonaysa 2013 waxay u baahan tahay ciidii maanta 20 sano ka bacdi u furi lahayd bayt cusub oo caalamka ay kula tartanto Puntland waa dal mug leh waa dad Soomaaliyeed oo dawladnimada u bisil waa dad aaminsan Soomaalinimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waa dad aaminsan in ay dhulkooda nabad iyo horumar ugu noolaadaan anigu waxaan idin ballan qaadayaa insha Allah inaan Puntland u hiiliyo shacabkeeda u hiiliyo ciidankeeda u hiiliyo dhalinyaradeeda u hiiliyo bahda waxbarashada u hiiliyo ganacsatadeeda u hiiliyo waxgaradkeeda u hiiliyo ismadeeda u hiiliyo nabadoonadeeda u hiiliyo odayadeeda u hiiliyo naafadeeda u hiiliyo insha Allah waxaan rabnaa inay nabad dhacdo inay doorashadan si xor ah oo xalaal ah oo nabada ku dhacdo haddaan musharaxiin nahayna waa ka shaqaynaynaa